Ma fududahay in lacag laga sameeyo blogging? Marar badan ayaad maqashay dad sheegaya inay maalintii $80 ka sameeyaan. Laakiin sidaas loo sheegaya miyay u fududahay? Inta aan jawaabta ku siinin marka hore aan isla fahanno qaabka blogging u shaqeyso. Blogging waa inaad website samaysatid. Website-kaas oo aad kusoo bandhigaysid posts ama qoraallo si ay dadku u akhristaan. Blogging waxaad lacag uga samayn kartaa laba qaab. Qaabka koowaad waa inaad Google AdSense ku xiratid website-kaaga, xayeysiimaha uu website-kaaga kusoo bandhigayana aad lacagta ka samaysid. Qaabka labaad waa inaad lacagta uga samayso qaab affiliate marketing ah. Muuqaalkeen waxaan uga hadli doonaa qaabka koowaad oo ah inaad AdSense ku xiratid website-kaaga si aad lacag uga samaysatid. Marka koowaad aan isla fahanno qaabka AdSense u shaqeeyo. Ugu horreyn sawirkan fiiri. Meesha ay ku qoran tahay CPC waxaa laga wadaa cost per click ama lacagta aad helaysid halkii mar ee lagu dhufto xayeysiimaha website-kaaga kasoo muuqda. Meeshan kale ay ku qoran tahay clicks-ka waa inta qof ee kugu dhuftay xayeysiintaada. Waana meesha ugu badan ee lacagta aad ku helaysid. Mar walbana waxay ku xiran tahay niche-ka aad dooratid iyo dadka soo booqanaya website-kaaga meesha ay ka imaanayaan. Meeshan kale oo ay ku qoran tahay impressions waa inta qof ee aragtay xayeysiimaha website-kaaga lagu soo bandhigay. Sidoo kalena lacag aan badnayn ayaa laga helaa ayadana. Haddii aad fahantay qaabka AdSense u bixiyo lacagta, aan u gudubno su'aasha jawaabteeda. Ma fududahay in blogging lacag laga sameeyo? Jawaabtu waa haa, haddii aad heli kartid traffic ama dad badan oo website-kaaga kuu soo booqda. Laakiin haddii aadan haysan traffic ama dad badan oo website-kaaga kuu soo booqda, way ku adkaan doontaa inaad lacag ka samaysid oo waxaa laga yaabaa maalintii 1 senti inaad ka samaysid. Intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. Haddii aad u baahan tahay wax caawimaad ah, waana soo weydii kartaa. Sidoo kalena Telegramkeena ku soo biir.